Episode 2. Our second episode. Mm-hmm. We're moving on. We're moving on. وصعدة يا محمد. وصعدة كودي. وإحنا وانسذا لابد مركو حويان. Second episode ما شاء الله. So excited we're here. We are recording our we're second making episode. We making it. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Making it. Yes. Don't judge me. Oh, of course. What is the judgment? حل عياريان. Oh. إسلامها واوين. Oh, it's okay. You know. We're not Islam by the way. وعادي. أنا نفسنا we are doing us. We're not worried about anybody else. So, we're not judging anyone. No. Judgment مجرو. قفك محو حسمينا يا محو حنوية ليا. هولاس وحرنينا كهرطة. Yes. إنا كهرطة. مدونين إنا قف كل كلنا. مدونين إنا عندنا ماركتي. هوله كمش قر. أنا قتنا وحومين بوقت. تنا كمش right? So we're minding our business. Always. All the time. You're minding our business. With a smile. MashaAllah. That's always positive. Yes. وحي negative كله يمادنا. Yes. أجاه كودة. سيت هرانتي. What's كريبي سا؟ سكري. بحالة أفكر. وكهريان. Which I mean, لا maaha. You're gonna go to jail. This is America. Yeah. Yeah, we don't suggest that. No, we don't condone violence. But what I mean, telephone kaga hero. And keep positive coming in. Right? So yeah, you have some our second questions episode for me. introduction. Introduction كنا نقول أنا الله قيبات. Introduction منو يعني مدام الله ده إنه هاي لبض قفوا مستقرية. This podcast DaDaal ودادا ما شاء الله. مركا منو سؤالها هذا كوه إنه وحويان وحدوني إن ضدك أنت بدون مقارنة يعني. مقالة أنا قرر سيارة واشنطن معنا إن إريد السيارة إنه واحد جيدا دقنا هاي ضد بدن ويقارنة يعني لكن وحلاقي على ضد أنا هالكن دقنين بيعرف فوق شوقة أنا مقالة مشوق إني مقارنين ضد كانوا مقارنين بواحد دورينا إن أي بطل منى وايو منى واحد هذا in Facebook. My name. My chosen name. My real name. My chosen name. مقعد أديكو دورتي. واحد هذا منى شكري عيسى علي. شكري عيسى علي وهو يدي. ما شاء الله. أنك عيبر أنا هو يدي مقعد. controversial ونقرأ حوها. No ما نقول. ولا سكبر إيمان كرا. No. I don't care. أريد هو يدي بس هو كرستي. مو يسنا بلاهين. I don't care. It's not. تاسي وهول يجوا تعلم. بدأني جاي تعلم معها. I chose to acknowledge my mom sacrifices and acknowledge what she did for me. MashaAllah. And how I reach wherever I'm tagging him on because of her. MashaAllah. مركا ودمت الله يرحمها. وحكلي أنكو حسي كرا صدقتي دعادي. الحمد لله. I do that, but I want her name to be said. I want to hear it. So I put it with my name. So every day what reminder. الله يرحمها ويغفر لها. إنك الصائل نجاه سلسلة كان يقول الصعطة. اللي كترته وإنه نغشاي ولا joke that it's my memory. It's my rock and it's always gonna be my rock. So my name is Mona Shukra Isa Ali. هذا دون اسم مقع صومالي جا واحد منى إبراهيم منقيق بان ناس تقوم مقع دار yeah you wanna know my dad منقيق يا هذا مقشين ومقعيده ويبدين وحنا هاي ولا شنو مقالة سياسة دكان. What do you do منى? So I am a doctorally prepared nurse practitioner. So شغالة وحنا هاي nurse practitioner. مركا dadka أنا American degree nurse practitioner is a little bit not لو ما قرناي ما nurse بعتها ما sister بعتها ما ممرضة بعتها ما حاتها. نعم. So I'm a nurse in profession. I've been a nurse for the last 12 years. And I'm a registered nurse. لكن وانكسي السعودية and I got my doctorate in nursing practice. مركا ممرضة ممارسة. So I am a family medicine practitioner. So I see kids from birth. I see people from birth until death. مركا إلمها للشيء
oo hadda dhashay ilaa iyo qofka intuu waayeelnimo a hospice care end of life. I see that spectrum. ilmaha dhashay ilaa ay waayeelka and fortunately enough for us in Seattle, I practice on my own. We don't need a doctor or a physician supervision. And I'm the founder and the owner of my own clinic, Holistic Family Care and Aesthetics. And I practice in Auburn, so you come and check me out. Yes, mashallah. So Muna waxay leedahay hadda ay furatay meel ayada aad ugu imaan kartiin oo iyadu howlo badan idinkugu soo diyaarisay insha Allah. I'm working on it. This is slow, but we're going to get there. That's my dream. coming through. يعني شوي ونسو قاعد وانا قاعد عربي مركا لكن ووحي لهيك وقرب كنت أخيرا في أخيرا وحي يدبي لهيك وقول لي جاي تخير ما كنت شرا مركا ولا سوق I just launched so it's a brand new practice but it's and everything starts with one step إن شاء الله كندوني ونقارية ما شاء الله عربي كنت مهما ذي ربع أنا صومالي نقولهم wixii soo raaga nacam khayr ku jira marka waxay dhahaan Soomaalida haday degdegsiyo door dhalayaan kaadsiiyana kiish lacag ay dhan lahayn kaadsiimana kiish lacag ay dhan lahayn Soomaaliga ka baranay marka alxamdulillah marka taas another good mama marka ma sha Allah and congratulations waan aad u faraxsanahay and waan ogahay inuu dreamkaaga ahaa oo muddo dheer ku haminaysay in maaragtay adiga meel adiga practice ah oo aad adigu patientkaaga ku arki karto oo cidna aysan maaragtay maanta ku sheegin sida u sameynayso oo dadka sida rabtid ula shaqeynaysid like we said the last episode fiican aad ula shaqeynaysid ogtahay baahiyada loo baahan yahay ogtahay sida shaqeynaysa iyo waxa shaqeynaynin aad kala ogtahay ilaa qofkii dhakhtar waxaad noqon kartaa arka oo sida wadankan looga practice garay oo annagana maadaama muddo dadka la shaqeynay dawada inta la siiyo dhakhtarkii wixii uu gurigooda u diro oo la ogeyn qofkaas wuxuu la kulmi doono laakiin adigu waxaad ogtahay waxaan ma shaqeynaya miya then waxaad doonaysaa marka inaad samaysid wixii dadka u shaqeyn lahaa saasaan u maleynayaa inay ka dambeysay inaad adiga meel adiga ku gooniyo oo dadka aad ku arki kartid oo la shaqeyn kartid inaad samaysid kaaladana waxay yiraahdaan if you want to change be the change you want to be annaga inaan sameeyno waxa aan rabno inaan aragno isbeddelka doorin inaan anaga wala adu ka shaqeysan samaysid marka miiskii marka lagu aad fadhiisan kari weyd wax bedeli kari weyd miis adigu samayso waa hadii waxa ka bilaw waana ku wanaagsan hadan Soomaalina inaan miiskii gadin so that was not hard waxyaabaha ku fiican marka ma sha Allah congratulations mano ma sugi karo meelaha uu gaari doono clinics aad hadda maanta aad shaqaynaysid oo sameynaysid insha Allah maxaa waay education-kaaga waan ka hadalnay background-kaaga waa su'aashii hadda ayaa labadeen isku keen raacaysay ma sha Allah waa maxay waxyaabaha aad jeceshahay inaad samaysid oo hobbies la yiraahdo muna maxay intee fariisato tiraahdaa I like to do that waxaan jeclahay inaan sameeyo oo happy ka dhiga farxad ku geliya ama hobbiga waxay ahaan hobbies like maxaa weeye I always like to laugh. MashaAllah. I'm a joker. Always you know that's my break. Like bring joy and smile and laugh and also come. You know it's a therapy. Wow. Actually, wow. So I'm always therapy. MashaAllah. Literally careless. Yeah, I mean I don't. When it comes to being free, I am. I have rules and regulations, but still. markay noqoto waxa sameynaysid wixii adiga ku qanciyaad sameynaysaa as long as within boundary you made for yourself dadka kale dadka I don't nacam kama walwalaysid muxuu qofkaasi oranayaa marba hadii muno ay sameynayso wax muno ayada danta ugu jirto anigu waan okay so then dadka kale maxaa taasna as annaga ku dhisanaay our podcast waxa weeyaan minding our business. But it's hard to get to that point because through a lot of learning. You always need somebody to affirm you, somebody to accept you, you need to belong somewhere because hardly you belong anywhere. Yeah. It's really deep. We're not going to go that deep. You know, halkan soo maray halkan taaganahay maanta. You know, I just got to that point that you know, that's my thing. Laughing,
being Your me. hobby. Wow. I used to love dancing back in the days, but you can tell I don't dance anymore. I don't have time for that. Yeah. But I love music. Any kind of Mashallah. music. Yeah. Who dadka yaqaanaan Waxaa la oran for doonaa, my mashallah. children. Yeah. Music laga hadlayo. So Mashallah. You know, habbigeena it's weeye. waa hobby. Inaan barano. Whatever you Mashallah. do for yourself, Mashallah. adaa naftaada u sameynaya. So yes. I don't. Nacam Laakiin dadka farxadaada. aniga yaqaana from my neighborhood, dadkii la koray aniga yaqaana. Yes. They know that I am all for happy time and music Farxad. and chill and like Yes. I like that atmosphere. of waxaad coming. jeceshahay inaad farxdo, inaad qosasho, inaad Yes. ka welwelin waxyaabo Yes. badan, inaad nacam farxadda adiga markaa farxsan tahay muno oo aniga aan ku ag fadhiyo ana farxaddii ayaan kaa contagious. qaadanaya It is contagious. waa la kala qaataa. It is contagious. laakiin haddaad aadan faraxsanayn aniga laftigeyga farxadayda hoos bay u dhacaysaa. marka way fiican tahay mar walba qofka hadduu faraxsan yahay dadkii kale agaarkiisa joogo ayuu wax weyn ka bedelayaa. marka farxadda waa wax 100%. wanaagsan. So that's my happiness. Smile waa sunna inaan faraxsanaano inaan And always حتى haddaad diqsan tahay, just pretend, and then it's contagious. Yes. Wallahi waxaad dareemaysaa inuu wixii kala furfurmay. maxay yidhahdaan Soomaalida weji furan baa la galaayo guri furan lama galo. Masha Allah. I love that. See, Soomaaligan ka baranay. Waji furan baa la galaayo guri furan lama galo. means gurigaas wuu furnaan karaa albaabka, laakiin haddaa weji jactad ah haysatid qof wuu soo galaayo male. laakiin haddii wejigaaga uu faraxsan yahay cid walba wejigaas yarta. waa kugu aqaanaa wejiga faraxsan. I know you that much. Masha Allah. So maxaa marka isbedel baan ka hadalnay. isbedelkaad doonaysid xoogaa haddaa waan ka hadalna umaleynaa, laakiin hal mar haddaad noo yar taaban karto muxuu yahay isbedelka aan doonayno ani adiguba, laakiin maadaama hadda adiga aad su-aalihii ku joogto inaad ka hadashid oo aan rabno inaan u qaadno dadaal podcast isbedel noocee ayaan doonaynaa inaan So before even isbedelka, when we talk about the podcast, why here and why now, right? yes Marka podcastkan dadaal sanad baan kasoo shaqeynay. Anigu I always horta anigu I'm very introvert. Dad markay noqoto introvertkana markay naftayda iyo groupkayga iyo sectionkayga, I am within my boundaries. I always want to raising awareness, talking, dadka inaan halkay joogaan ku mid garayo. But I always wanted to have a bigger, train myself to be an extrovert, share what I have with a bigger group with no intention other than change. bulshadeena sidaan wax uga bedelna. I always markaan ka hadlayno big subject on Facebook or big subject, I always it tackle my mind. See, okay, waan hadlayna. Okay, what are we doing about it? Well, what is going wrong? maxaan bedelayna? hadalkan wuu socdaa, waan hadlayna. maxaan ka bedel karayna? Laakiin again, if you not in a space that you can have that safe space, because dadkii adigoo wax u turta message waa two ways. So it's a message. qofka hadlaya responsibilitygiisay tahay to direct the right message and you choose the right words. Si ay dadku sax ugu fahmaan. laakiin communitykeena weli wuu dhaawacsan yahay. dhaawacaana wuu nagu dheeryahay. And I don't care meel laga yimaaday. dhaawac wuu nagu dheeryahay. haddaanu annagayna soo gaarin. حتى markaan wada hadlayno, you hear something I didn't say because the trauma way ku soo socota weeyaan. So I want to change that. I want to have this safe space that we discuss. laba qof baan nahay. We don't have to be in agreement. Of course. We don't have the same background 100%. Like labadeedu Somali. That's the beauty of it. Two different perspectives. laba qof are totally a different background. So acknowledgement and accepting each other differences. Marka that takes a practice. If we are practicing it does. People, qof walba wuxuu oranaya markaad imka lagu arko qof idinkoo taagan waxa maxaa soo tihiin hadaas ka soo gasha. We don't have to be related. No. dadka lama shaqeeyo cadaanka ama dadka qodooyinka lama shaqeeyo. And nobody asked me maxaa soo tihiin. Why Soomaaliga lay weydiinaya dadka kale yihiin. So that's one of the changes. The other change is bringing those stories of success, like we said, hooyooyinka. That's an idea in my mind for a long time.
you know, to the point that I was even thinking of writing a memoir about my mom life. Life. If you think waxay nolosheeda soo martay, it's like inay sheeko tahay inaan erunahay. Marka, I realized if my mom had that rich story behind it, how many rich story we have that we never had the chance to talk about. A lot. Marka, that's another one. So that's such, I want a space we talk about everything in every way with everybody. And I want to be that voice. Somali waan ku hadlaynaa, English waan ku hadlaynaa, Arabi waan ku hadlaynaa if you need to. And we're going to expand from there. So, Ubah, Ade. yes. Ubah, hey, I'm going to ask you some questions. Okay. Okay. So that. Oh, Somali, so that, like you holding something and you letting So go. that way, so that. Do see that? maxaad noo haysaa? Dayno soo daa. Okay, so that hadalka soo daya. Hadalka soo Okay, daa. hadalka soo Su'aalaha daa. soo daa. Magacaaga. Soo yaaci. Magacayga waxaa la yidhahdaa Ubax warsame ayaan jeclahay in dadka laygu yeedho. Ubax Araweelo, Ubax Haldhaa. Laakiin my legal name waa Ubax Aadan. Magacaan leeyahay. Ubax Aadan. Laakiin magacaan jeclahay in laygu yeedho waa Ubax warsame. magaca xoogaa dadka qaarkood ay yiraahdaan waa ka gabanaa inaan kugu yeerno waa Ubax Araweelo. Anigu I like Araweelo. magaca ay dadka qaarkood yiraahdaan Ubax Araweelo waxaan ka jecelnahay Haldhaa waa la yiraahdaa. Ubax Haldhaa la yiraahdaa laakiin Haldhaa uu qaboo yahay waa degan yahay waxaan jecelahay Ubax Araweelo. Okay, warsame xagu ka yimid. warsame waa aabahay magaciisa. Aadan warsame la yiraahdaa. aabahay waxa la yiraahdaa Maxamuud warsame. marka warsame is a family name keena. laakiin Ubax warsame waxa weeyaan magaca aabe. What do you do for a living? What I do, aniga hadda as a profession waxaan sameeyaa interpretation. I'm a medical interpreter / COVID-kan waan xirtaa. I'm also a health coach. waxay u baahan yihiin inay sameeyaan dadka Soomaalida ah waliba ayaan aad u jeclahay. muddo 15 sano ku dhawaad baan hawshaas soo shaqeynayay. turjumaanimadana 22 sano sameynayay. Alhamdulillah, medical interpreter. So I've seen it all. wax aanan arkin male. Alhamdulillah, the best job. You gave them your age. Yeah, Maya, it's okay. 22. See, being that's health, a change. Being health, That's a change. good I genes. am so proud of We you. have to take care of ourselves. Yeah. When is Hanane? Naftada. Yeah. Naftada. Naftada Hanane. Isku rono, isu ron marro qato. What does that mean? Isu ron marro qato means qofka isku ron weligiis ma dhaco. Marro qato. Ma iilo, ma kufo, ma jabo, Okay. ma dhibtoodo. Right? Okay. So, Suron isu ron marro qato. Gabdhaha isu ronaado dumaro. Ay isu ronaado Your mashallah. education background. My education background, well, mono sida ula socotidba anigu waxaan ahaa buugaag xor long time and family race caruur baan dhalay caruur baan markuu wiilkayga uu gaaray high school ayaan waxaan idhi I have to in school dib ugu noqdo waayo waxaan ka baqay markuu asaga high school ka dhameeyo oo la yiraahdo hooy jaamacad aad inuu dhaho adigu ma aadin maxay rabtaa so waxaan idhi Ubaxay intayn taa kugu imaan Soomaalidu waxay dhahaan biyo intayn kugu imaan la iska muusa you know marka intay marwal qasri maamaayada she loves Somali maamaayo I know what's ururin doonaa through our podcast kuwa fiican ku soo ururinaya I'm not saying anything Musa so biyo intay kugu imaan la iska muusa means waa laga hortagaa intay biyo ku soo gaaraan you have to protect yourself amalaya marka waxaan is ila Ubaxay intuu ku dhahin wiilkaaga ama gabadhaada ama ka yar hooyo adigu ma aadin jaamacad anaga maxaan u qasbaysaa intuu ku dhahin Ubaxay hadda dib ugu noqo intuu asagu gaarin adigan iskuulkaaga soo dhamayso so dib ugu noqdo ma sha Allah ilmihiyo ron oo cunugeyga uu high school ka qalan jabin rabo ma jaamacad dib ugu noqday alxamdulillah 2020 this year I graduate career and my background waxa weeyaan psychology I love cilmi nafsiga jeclahay and marka psychology wax ka bartay and bachelor degree ga soo qaatay insha Allah weli school ku noqon doona weli way dhimayn yes you have way dhimayn school kale it's the only thing you do for you yes so yes waxa kale oo laga dhaxlay laga qaadan laakiin cilmigaagu waa maskaxdaada so tell me about your hobbies I know you have a lot of my hobbies waxa weeyaan in aan hadlo ay ku qoslin waxa qoslinaya waan hadal badan hayno maxaa sameeyade
malaga duwan karaa dhakhtar muno I'm not gonna say I'm not involved in this one either Scarlett okay joke okay adigu taada ka hadal okay my hobby waxa weeyaan in aan mar walba I like to travel inaan safraan jeclaa inaan meel aado inaan meel cusub soo arko inaan dadkaas waxay ku nool yihiin sidii u nool yihiin arko waxaan jeclahay inaan meelo kala duwan ogaado dadka meeshaas degan sidii u nool yihiin and also waxaan jeclahay inaan la sheekaysto dadka waaweyn oo dhuuxo I love inaan intaan ag fariisto aan dhegaysto aan dhaho iga sheekee noloshaada sheekooyinka dadka waaweyn inaan dhegaysto aadaan u jeclahay maasha allah wax cusub sameeyo maxay dhahaan af ingiriiska maxay ku dhahaan adventures and doing new things finding new things pushing the limit I know she pushed the limits I don't want to say your secret okay no next episode soo socda oo qarxinay marka waxaan jeclahay wax cusub wixii aan is iraahdo lama arayn karo hadii la dhahana waaba waxa la yiraahdo no ma samayn kartid anigu I'm ahead of that door there so that's why and I make sure to tap you back and say that's why I did it maxaad qaban kartaa alxamdulillah marka waxaan jeclahay inaan waxyaabo cusub arko on travel career that's hobbygayga why here and why now why here and why not now adiga way saaligu soo why not now okay so muddo dheer aan ka hadalnay DaDaal waanagii episodekeena kale uga soo hadalnay muddo dheer baan falanqaynay muddo dheer baan rabnay inaan aragno isbedelo muddo dheer baan waxyaabo badan oo baahida aragnay marka hadda waa xilliga saxda ah oo ku habboon this is the right time because I feel we're ready waa diyaar inaan nahay ayaan dareemaya xilligii saxda ahaa weeyaan now hadda waa xilligii saxda ahaa 2020 wuxuu ahaa sanad wax badan na baray pandemiga taasaa waxay nagu riixday inaan wixii aan xataa sugi lahayn oo gadaal u dhiganaynay aan dhahno why not hadda waa the perfect time we need this waa u baahannahay muddaan kasoo hadalnay sanadaan kasoo hadalnay this is the right time DaDaal waa inuu hadda dadka waxa aan rabnay inaan ku faa'iideynaa that's why that's why so what is the change you're hoping for wallahi isbedelka aan rabo inaan arko waxa weeyaan in hooyada guriga joogta oo dadaalaysa oo ubadkeeda ku dadaalaysa oo gurigeeda ku dadaalaysa oo marar badan aan credit la siinayn inay iyadu dareento inay gaarto guulo badan isbedel DaDaal adigana waad heshay waad samaynaysaa wax ugu fiican you're enough yes you are enough yes you are sidaa tahay ما شاء الله وابد بوليس marka inaan meesha waxa aan rabo inaan arko isbedelka aan rabo waxa weeyaan in darajooyinka kala duwan oo isdhexgalgalino annaga bokisyada annaga isku sameynay in bokisyadaas aan midba marka qaadno meesha kan ka qaad it's like labeling kan ka qaad bokisyadaas aan samaysanay annaga isu sameynay inaan ka qaadno meesha oo niraahno annagoo saa wada fadhino adigu enough baa tahay hooyada iyo dhalinyarada iyo dadkeena baahiyo badan maadaama aan ka hadalnay marar badan isbedelkaan rabo inaan arko wuxuu yahay isbedelkii aan hore u heli weynay oo mar walba aan ka hadlaynay hadda ayay tahay xilliga saxda ah oo isbedelka aan ka hadli jirnay intaasoo sano aan anagu dhalinayno waayo haddaan anagu isbedelka noqonin dadki keenay yaa noo samaynaya cidna afka nooma gelinayso waa inaan anagu keensano waayo annagaa dareemayna baahidii qaxootinimadii waan soo marnay carruurtii intaan ku dhalnay waan korinaynaa iskuulla halkan waan ku aadnay so waa garanaynaa baahida tii qaxootiga qofkii hooyada qaxootiga ka timid iyo aniga iyo adiga isku baahiyadii waan fahmaynaa haddaa qaxooti ka imaaday qaxootiga tii ka imaatay waxay dareemaysaa ana waan dareemayaa isbedelkaan raba inaan arko waa kay rabta iyada in aragto inta badan so marka waxaan rabnaa leerada iyo labelka iyo boxka isbedelkaan doonaya waxa in laga qaado aan heli karno meel aan waxa annaga baahiyadan iyo talooyinka isugu dhiibno wax ku wadaagno maskaxda adiga kaliya kuma jirto ilaa waxay ku jirtaa dadkii dhan maskaxyada in aan isku darsano oon tii muhiimka kala baxayo
Yes. Yes. That's the isbeddelkan To doonayna. navigate Yes. what other options we have. Exactly. And to bring in the next generation. Yes. Generation 2. Yes. The one who born here. Yes. The one even came here when they were young. Yes. 1.5. Yes. So, MashaAllah. انت بدل اسمه فهم. Yes. So it's like culture clash. Yes. marka caruurtii iyo annaka isma fahmayn. Ah, So you know, there is a lot of things we raised with. It doesn't work in this, and it takes the hard way to hard way to Yes. figure out that, oh well, too bad hoya adiga kusoo koray marka it does not apply. marka nacam To waa here, yeah. waa wada wax aan waa in maskaxdeena aan furno si aan ku ogaano baahiyadaas annagu hadday maskaxdeena xiran tahay ma dareemi karno But we all marka annagina have horta to come. maskaxdeena furno And we all have to come to Yeah. the table with Yes. open minds. Say it in maskaxdoo Somali. furan annagoo maskaxdeena furan tahay Yes. oonan qofna qof u dhaleeceynin qofna qof u eedeynin qofna qof uusan farta ku mudaynin qofna qof uusan far ku qalloocinin inaan meesha intaan wada fadhiisano dhihi karno maxaa noo dana maxaan ka hadalnaa isbeddel sayaan u baahannahay halkeen wax ka bilownaa maskaxdana keliga naguma jirtay annagoo dhan bay nagu jirtaay aan maskaxyadeena wixii fiican kala soo dhex baxno si aan danta fiican meesha wanaagsan aan u baahanayn gaarno So yes, that is waxa weeyaan this is Ubah. barasho wanaagsan ubax haldhaa ubax araweelo Anigu Arroyo is my favorite because the Arroyo is a legend. araweelo waxa weeyaan ha la isku xushmeeyo magacyada qof walba magaciisa So we respect please leave us your comments, suggestions, and if you have questions for us or topics you want us to tackle, let us know. For now, dadaala see Ugara. dadaala Ugara.